wararka saaka laga helayo gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka bilowday dhaqdhaqaaq xooggan iyo sidoo kale in labada dhinac ee halka ku dagaalamay ay sameynayaan gurmudyo kaga imaanaya goobaha ay ku kala sugan yihiin ciidamada aad u fara badan ayaa dhinaca Somaliland ka yimid kuwaas oo qorsheynaya in ay la wareegaan fariisimayaasha ciidamada SSC Khartoum ay ku leeyihiin gobolka Sool halka dhinaca kale SSC iyaguna ay wadaan diyaar garowyo sidoo kale gurmudyo kale oo aad u xoogan oo ay ku doonayaan inay isaga difaacaan ciidamada Somaliland ee weerarka soo qaaday sida saraakiisha SSC ay xaqiijiyeen goobaha ugu badan ee dagaalada ay ka dhaceen waxaa kamid ah baliyada Goble Magan iyo sidoo kale Galgal halkaas oo labada dhinacba Somaliland iyo sidoo kale SSC ay ka sheegteen guulo aad u weyn isla markaana midka kale uu sheegayo in dagaalku uu ku jabiyay balse saakay waxa soconaya dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale xiisad ka taagan goobihii lagu dagaalamay labadii maalmood ee u dambeeyay gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan ayaa la arkayaa muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada in qolo walba ay soo bandhigayso diyaar garowga ay rabto in ay kala wareegto qolada kale ee ka soo horjeeda markii hore dagaalka waxa uu u dhaxeeyay dadka degan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo sidoo kale beesha Habarjecle balse waxa la xaqiijiyay in beesha Garxajis iyaduna ay ku soo biirtay dagaalka afayeen u hadlay ciidamada SSC Khartoum ayaa waxa uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigayaan magaalada Buuqodle aysan istaagi doonin halka ciidamada Somaliland iyaguna ay qorsheynayaan in ay ka hortagaan in ciidamada SSC Khartoum ay la wareegaan halkaasi waxaana soconaya diyaar garowgi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo halkaasi ay ka wadaan ciidamada SSC Khartoum iyo sidoo kale maamulka Somaliland waxaana soconaya barakac ay bilaabeen dadka deegaanka kuwaas oo ka cabsi qaba in uu saameeyo dagaalka aan joogsiga lahayn ee u dhaxeeya ciidamada SSC Khartoum iyo sidoo kale maamulka Somaliland dad badan ayaa 24 saac ee u dambeeyay guryahooda ka barakacay kuwaas oo hadda dhibaatooyin kala duwan ay ku hayso dhulalka miyiga ee howdka ah iyagoo tilmaamaya dadka in xilligan ay ku adag tahay helista nolosha iyo sidoo kale maareynta intaba balse dhinacyada dagaalamaya iyagu ujeedka ugu weyn ay leeyihiin waxa ay tahay in fariisimayaasha qolo walba ay ku sugan tahay inay kala wareegto dagaalku u dhaxeeya ciidamada SSC Khartoum iyo sidoo kale Somaliland ayaa waxa uu ku dhow yahay 2 sano iyadoo dhinacyadaasina la og yahay in dagaalkii ugu xooganaa uu ku dhaxmaray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo markii dambe gacanta ay u gashay ciidamada SSC Khartoum wixii markaa ka dambeeyay Khartoum iyadoo waxa ay bilowday in ay sii fageysato fariisimayaasha ay halkaasi ka sameysanayso si aan loo soo weerarin gudaha magaalada Laascaanood waana sababta keentay isku dhacyada ciidamada Somaliland iyo sidoo kale SSC iyadu waxay doonaysaa magaalada Laascaanood iyo sidoo kale goobaha ka agdhow inay ka fageyso ciidamada Somaliland halka Somaliland ay doonayso in mar kale dib ay ula wareegto goobihii laga qabsaday balse la arki doonay halka ay ku dambayso dagaalkan aan dhamaadka lahayn oo u dhaxeeya ciidamada SSC Khartoum iyo sidoo kale maamulka Somaliland